magaalada Boorame ee xarunta gobolka Awdal ayaa martigelisay habeennimadii xalay wejigii saddexaad ee barnaamijka habeenka halabuurka iyo hibooyinka hablaha reer Awdal oo noqonaya sanadkii saddexaad ee si xiriir loo soo bandhigo. Munaasabaddan ayaa ka qabsoontay hotel Rays ee magaalada, waxaana badiba kala soo qayb galay mas'uuliyiin kala duwan oo ay ka mid ahaayeen wasiir ku-xigeenka wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare ee Somaliland, barasaabka gobolka Awdal, xildhibaan Mukhtaar Xasan Maydhan oo ka mid ah xildhibaanada golaha wakiilada Somaliland ee ka soo jeeda gobolka Awdal, gudoomiyaha garabka dhalinyarada heer qaran ee xisbiga mucaaradka ee wadani Cabdirashiid Cabdi Jaamac, mas'uuliyiinta ururka Now, gudoomiyaha ururka saxaafadda haweenka Somaliland, badiba hablaha gobolka Awdal, aqoonyahan siyaasiyiin, fanaaniin, kooxaha dhaqanka iyo bulshada qaybaheeda kala duwan. waxaana gebi ahaanba niman madasani maayirka degmada Boorame Maxamed Axmed Warsame Baradhe. ugu horreynba waxaa halkaasi ka hadashay Asma Maxamed Jaamac Asma Gagajir oo ku hadlaysay afka hablaha soo qaban qaabiye barnaamijkani iyadoona faahfaahin ka bixisay. ama uu barnaamijku yahay kalkii saddexaad inuu mar saddexaad dhacana sidaad ka wada warqabtaa waxa suuro gelinaya maadaama uu yahay barnaamijkani mid sanadla hadduu Ilaahay ogolaado uu soo noqon doonaa. waxa soo celcelinayna wax kala ma ahane waxaan aaminsanahay hablaha gobolka Awdal inay yihiin hablo hal barnaamij oo sanadkii la qabto xataa aanu ku filnayn cimrigiisa oo dhan hadduu soo noqonayo. barnaamijkan ujeedada loo sameeyay waxay ahayd in la muujiyo hal abuurka iyo hibooyinka gaarka ah ee ay leeyihiin hablaha reer Awdal. hablaha reer Awdal waxay leeyihiin hibooyin iyo hal abuur u gaar ah, isla markaana ay dheer yihiin hablaha Soomaalida iyo hablaha adduunka kale kula noolba. in la muujiyana waa qalmaa caawi iyo beriba. intaasi kadib waxaa madasha ku soo bandhigay buugaag ay qoreen 4 hablood oo ka mid ah qoraayada gobolka Awdal. buugaygan nafaqee naftaada la yiraahdo waxay u kalifay ma oran karo qof ama shakhsi waa qofka u qaalisan adduunka intii haysatina Ilaahay ha u daayo, intii aan haysanna Ilaahay yarxamullah baan leenahay. hooyadii macaan sababteeda ayaan u qoray buugan si aan iyada ugu akhriyo. buugaygan waxa la yiraahdaa ha u duloobin duruufaha nolosha. dhab ahaantii waynu aragnaa buug badan oo magacaan leh, balse waxaan leeyahay buugaygu ka duwan yahay uu ka fiican yahay. halkii laga sugaayo rag seegatiisi ma saaroodo dumarku iyo masamkii laga qay. qof wuxuu ayaa dareen bixiya marka uu wax aan la qalbino arko, marka cuntaas ayaa ugu badnaa inta feedback lagu soo celiyay ay dadka cajiib badan ilinta la qabso. runtii sharaf weyn bay tahay, farxad weyn bay tahay inaan munaasabadan aad ku qiimaha badan leh sanadkii labaad goobjoog ka ahaado ee lagu xusayo habeenka hibooyinka hablaha Awdal, taasoo ka turjumaysa qiimaha ay u leeyihiin haweenku bulshada jiritaankeeda. koobaad aanu mahadnaqo tiimka inaga wakiilka bulsho ahaan kooxda hablaha ah ee noo soo bandhigtay. marka labaadna aanu hambaliyeeyo hablihii buugta qoray. arwaan yar saaqidnay baasha nagala wareega, madaxweynaad noqon kartaan, boqorad baad noqon kartaa, maayar baad noqon kartaa, wasiir baad noqon kartaa, waxaana noqon karinba ma jirto. haweenka halkan fadhiya hadday isku tagaan waxay soo saar lahayn xildhibaan golaha deegaanka, laakiin may dhicin. sababtuna waxa weeye haweenka waan is ogolayn, haweenka waan qofkii dhiirigelinayn, haweenka waan qofkii himilada leh aan garab joogsanayn. hambalyo waxaan idin leeyahay dunida aan ku noolahay inta dumar shaqaysta dadaal bay ka muujiyeen. annagu haddaan nahay reer Burca iyo bariga ma dhacdo in barnaamij inta loo dad inta isugu yimaadaan waliba waqtiga inta laga fadhiyaan. marka malaha idin isma dareemaysan ilaa maanta waan ku faraxsanaa waan la yaabaa. marka waan ku amaanay gabadhii sariirta ama kuraasada samayn jirtay inkastoo magaalada iminka yaqaanaan Xamdi Sariir magaceeda laga boodayba haddana waxaa la yiraahdaa Xamdi Xasan Maxamed
alxamdulilaahi rabbil caalamiin shalay sidaan ahaa ma ihi taasna waxaa u sababa ilaahay runtii caawa waa habeen aad iyo aad aniga farax ii gelinaya barnaamijkan hibooyinka hablaha reer awdal intii la qabtay baanu waan ka soo qayb galay sanad walbana waan ka qayb galaa waanan ku faraxsanahay bogaadinayaa oon aad ugu hambalyaynayaa hablihii halkan ku soo bandhigay hibooyinkoodii halabuurkoodii iyo hibooyinkoodii aad baan idin bogaadinayaa waxaad ku faantaan ood kaga duwan tihiin gobollada kale Soomaaliland waa gobolka kaliya ee lahaa taariikhdana waxa ugu horeeya afka waa gobolkii lahaa af isaga u gaar ah run ahaantii farxadayda lagama sheekayn karo anagu haween baan naho hablaha quruxda badan leh hal abuurka ee bugaagta qoray waxa weyn anaga barbaarina hooyooyin markaan nahay marka hablahu god forward baan la hore u socda halka kaga sii haya hablihii barnaamijkeena soo qaban qaabiyay waxaan hambalyeeynaya hablihii caaw madashu shidnayd ee halabuurka qoraalka lahaa waxaan hambalyeynayaa inta ajiibtay ee u samirtay ee fadhiday gabagabadii gunaanadkii qaar ka mid ah hablaha gobolka Awdal ayaa su'aalo weydiiyay qoraayada buugaagta suxufi Cisqeemam TV magaalada Boorame ee xarunta gobolka Awdal